horumarto adeegsatay meeshaan rabno hanaankii dowladnimo dabada hilinkii la qaad hormuud bay dunida tahay Somaliland horumarto adeegsatay meeshaan rabno hanaankii dowladnimo dabada hilinkii la qaad hormuud bay dunida tahay waxaa hurda lagu gam'aa haraadkuna kaabaa waxaa hurda lagu gam'aa haraadkuna kaabaa markada harato midnimo kalsooni goysato cadaaladna lagu agaasimayaasha guud wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha madaxda kale qaranka ee inala fadhida iyo madaxdan iyaguna ka socota foreign office-ka qolada ingiriiska iyo oxyamba iyo dhammaan howlwadeennada kale aad baan idin salaamayaa waxaanan idinka mahadnaynaa sida fiican aynu kulankan isugu nimi markaa kulankani ujeeddada ugu muhiimsan waxa weeyaan nidaamkan case management systemka oo ahaa in la casriyeeyo oo loo bedelo nidaam casri ah isla markaana ay hay'adaha dhameeyay hay'adaha chain loo yaqaano criminal justice chain ama silsilada isku xiran ee booliska ka soo bilaabmata ee xabsiga ku dhamaata in ay ka faa'iideystaan oo la eego marka horta maanta ujeedada ugu muhiimsan waxa weeyaan case-kaasi siduu uga hirgalay maxkamadaha ayaanu idiin barsan garaynaynaa iyo siduu ugu xirmay booliiska iyo xeeraalinta iyo xabsiyada dabadeedna taa markaynu eegno haddana marka qodobka labaad ee ujeedada kale waxa weeyaan sidii dambigu ila meel buu ka soo galay entry point buu waddanka leeyahay meelna uu ku dhamaadaa booliisku ka soo galaa xabsiyadana uu ku dhamaadaa oo correctionskiya booliiskuna waa hay'adda dambiyada qaabilsanaya ama baadha ama marka hore qabata markaa silsiladeenaasi marka horeba waynu isku xidhnayno waynu wada shaqaynayno laakiin nidaamkan casriyeyn technology-ga ee daatadiiya oo laga faa'iideysanayo oo isla markaana aynu dee dunida la jaan qaadayno sidaynu effective uga dhigi lahayn baa horta muhiimku iyo markaanu presentationkan qaybta maxkamadaha soo jeedino waxaynu ognahay halkan buuggan aan halkan ku haynaa ma aha uun maxkamadaha uu koobayaa dhammaan hay-adaheenan isku xidhan oo dhan markaa taasi horta waa macluumaad iyo xog inaynu helno maadaama aynu madaxdii top leadershipki ugu sarreeyanahay maantana aynu fursad isu helay mar labaadka marka xogtaa helno haddana waxay imanaysa sidaynu u xoojinaa oo iminka hay-adaha qaarkood waxay u baahan yihiin in la gacan qabto oo maxay haydeeyihiin in la gacan qabto programkan la ballaariyo oo aada loo sii hirgeliyo sida xabsiyadoo kale iyo maxay haydeeyihiin intuu toos loogu xidho maxay haydeeyihiin oo ay dee daatada halkaa automatically markay booliis ka soo gasho wixii dambiyada ciqaabta ah in xeeraalintii ay access u helaan dabeedna maxkamadaha uu ku dhamaado maxkamadu dabeedna ay helaan iyaguna ay koobiyadii helaan dabeedna marka hadhow dadkii la xukumo dadkii la xukumo in ay de xabsiyadiina helaan macluumaadkii oo ay hab automatic u helaan intaasoo qof baa la xukumay waxa lagu xukumay maxay haydeeyihiin sidaasay macluumaadkoodu kale yihiin dembiyadaasaa loo haystaa xadhigoodu waa kuwa waaranadii wixii o dham inuu soft noqdo oo de ay silsiladii fududaato marka ujeeddadu horta waa kaa oo ay shaqaduna inoo fududaato marka nidaamkani oo reeri iminka hay-adaheenoo dhan waa pilot buu yaallaa laakiin anagu maxkamad ahaan taanu maanta idinku yeedhin waxa weeyaan ilaa maxkamadda sare iminka maraya oo de maxkamadii hoose iyo kuwii sare waanu isku xidhnay oo iminka accesska aan kaysaska maxkamadaha hoose socdo u leenahay iminka tababaradii baa noo dhammaaday maxkamadda sare macnaheedu marka waxa weeye maxkamadda sare halkan baa lagala soconaya dacwadaha soo galay entry point-kii xuduudihii maxkamadaha soo galay noocyadooda qaybaha u qaybsan yihiin analysiskooda marka inaynu kaa isagana de from booliiskii ilaa kan xoojino
oo dabadeedna discussionkeenu maanta wuxuu badanayaa dee hawshii pilot waa loo wada hayaa booliisku way hirgeliyeen pilot ahaan oo waxay leeyihiin xaruntan crime report organization CRO ay leeyihiin qayb ku sii takhasustay oo markaas laga tagay prison-kii oo kale way leeyihiin oo waxa la dhigay qaybo waxa la dhigay reader wasaaradda cadaaladda oo kale wax weeyaan qaybtaasay ka mid yihiin oo iyaguna dee prison-kii bay ay monitor gareeyaan oo ay la shaqeeyaan oo wasaaraddii way u qaabilsanayd marka labada ujeedada horta ugu muhiimsan inaynu ka macluumaad ahaan u ogaano annagu maxkamad ahaan marka waxaanu saaka idinku yeedhnay oo ugu muhiimsan in systemkaasi uu sii jiidanayo uu sii hirgelayo oo imika waxaanu qoladan ka codsanay inay nala ballaariyaan oo imika Hargeysa maadaama implementationkiisu ka sii hirgelayo inaanu gobolladii u gudubno oo pilot ahaan aanu 6 gobol ee waaweyn aanu caasimadahooda horta ku xidhno oo la ogaado qaybo kale oo iyagana ilaan maxkamaduhu ma aha un dambiyada ciqaabta ah dambiyada ciqaabtu ma aha waxa kale oo ay madanigii baa jira marka madanigii oo kalena in laga caawiyo sidaynu la socono in project-gan dowladda Ingiriiska waa ka ugu effectivesan marka ay noqoto targetka marka caawimada marka laga hadlayo Soomaaliland wax la qabadkeeda ujeedada ugu muhiimsan ee ugu effective-ka u noqdeen wax kale ma aha waxa weeye mandate-kooduna uu xadidan oo iyaga mandate-koodu waa mandate go'an waxay nala qabtaana waa wax ka yimaada baahidii oo ama booliis ha ahaadaan ama xeraalin ha ahaadaan ama qaybaheennii kale ha ahaadaan imika inaga xabsiyadii wasaaradda cadaaladana ku xidhnay oo muddaanu u doodaynay in la gaadhsiiyo oo ay labada hay'adoodna lagu ballaariyo marka waa wax baahideennii ka yimi oo inagu ku salaysan inaga baahideennii iyo saasa wax loo qabanayaa iyo tallaabadaasaa la qaadayaa weeyaan iyo iyagoo iyagana wuxuu xadidan yahay hay'adahan kale caalamiga ina caawiyo dhan wuxuu kaga duwan yahay taasoo aad uga duwan yahay marka de kulli prestation kadib baynu discussion ka geli doonaa qodobka labaad ee kale saddexaad waxa weeyaan faa'iidooyinku leeyahay waxa kamid ah in la helo daatooyin in data sax la helo iyo in la ogaado direction kay crimes ku socdaan daatooyinkii marka la helo waxa la ogaanaa dambiyada noocyada u badan qaybahooda ablaableynta dambiyadaasi dabadeedna hay'adaheena nimanka criminal justice kaasi chainkaasi shaqadeena maaha inagu wax weyn in la tacaalo dambiga laakiin hay'adihii kale qaranka ayaa ka faa'iideysanaya oo hay'adihii bulshada qaabilsana kuwii dhaqaalaha kuwii waxbarashada waayo marka la ogaado gaangiska u badan ee ay tirakoobka soo baxaan daatadii helo de waxa loo boos gareynaya qarankii dabadeedna waxa loo dhahay maxaa sababay ma tacliinta fashilantay ma waalidka ma bulshada ma adeegyadii bulshada liita marka daatooyinkaasi iyo waxa ka soo baxay macluumaad because waxa hay'adahan booliiska ilaa iyo xabsiyadu shaqadooda ma aha iyagu dambiyada la tacaalaan shaqadoodina way ka soo baxeen maalin walbana dadaalkaasi ku jiraan laakiin waa in la helo data sugan oo la transfer gareeyo in la fahmaano waa muhiim oo hadii jeeraale de dambiyadu nooca yihiin iyo qaybahooda iyo waxay u badan yihiin booliisku way sii daayaan anaguna kuwa dhamaado waanu sii daynaa sanadkii waana la helaa laakiin waa in hoos looga daadego oo ay aan tirakoob iyo figure lagu koobnaane de in hoos looga daadego oo bulshadu ay ka faa'iideysto oo ay hay'adaha ku shaqada leh ay eegaan oo ilaa hadii kale bulshada crime ku sii kordhaya imika tusaale ahaan booliiskuna way soo saareen anaguna imika tirakoobkii sanadkan soo saarnay waxyaalaha ku ogaanay waxa kamid ah dilku inuu saru socdo in dilka oo dambiyada ugu culus dambiga ugu badan maaha oo de robbery-ga ugu badan iyo burcada ay booliisku iyo aan la wada tacaalaynay carruurta ay wax boobaysa laakiin marka la eego garaafka dilku tusaale ahaan wadanka saru u socdaa dabeedna waxa la eegaya ma arbanka ma magaalooyinka ma meelaha nomadiga haddana ruudkii baa loo noqonaya haddana wax badan baa la eegaya marka taasi arrinkaas ay naga caawinaysaa iyo de waa tusaale weyn laakiin waxa la ogaanayaa maxay hayday wax waliba dhinacay u socdaan baa la ogaanayaa marka labada ujeedaynu saaka isugu nimay in awareness ahaan iyo information ahaan aanu idinla share garayno maxay hayday in nidaamka CMS systemka ama case management systemka oo electronic ah uu dhaqangal fiican maxkamadii ka marayo oo imika maxkamadda sare tababaradii shaqaalaha oo dhan iyo computeradii development iyo implementationkiisi baan bilownay maxkamadaha hoosena uu ka hirgalay xeeraalintana pilot ahaan baa loo dejiyey oo iyagana si fiican buu uga shaqeeya xafiiska xeeraalinta guud de booliiskuna waa halka soo bilaabmaba iyagana xafiis dhan bay leeyihiin laakiin in la ballaariyo kaasi in la ogaado iyo ka labaad ee kale
inaynu baahideena laftigeena ka hadla xabsiyadana waa aniga idin sheego pilot baa loo dhigay oo iyagana uu yaalaa qayb tijaabo ah oo lagu ogaanayo horta bal aynu pilot garaynayno maxay hayday inay ogaadaan marka maanta waxa taala waynagan de haydaheeni dhane nimankana waxaynu ugu yeedhnay inaynu de kala hadallo reality-ga oo aynu de baahideeni iyo aynu ku naahno de area-daas aanu u baahanay in laga sii caawiyo marka anu tusaale ahaan oo kale waxaanu maalmo dhaweyd kala hadlaynay in pilot ahaan ay noo tijaabiyaan inaanu maxkamadihii 6 gobol ee waaweyn horta inaanu ku xidhno kuwan Hargeysa oo maxkamadda sare lagu soo xidho maadaama dambiyada ciqaabtu rafcaan halkan u yimaadaan dabeedna hadhow de maxkamadu go'doodi maayaan waxa baal soconaya in xafiisyada xaraalinta guud iyo booliiskiina lagu xidho oo iyaguna ay baal socdaan ileen iyaguna gobol walba dambigu booliisku ka yimaada xaraalin buu maraa dabadeedna wuxuu soo gudbaa maxay hayday maxkamaduhu soo gudbaa marka taasaan codsanay marka labada arrimood baynu isugu nimi marka de aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin horta aad iyo aad baan nidaamka soo dhaweynayaa waana wax loo baahnaa miisaanadan ka warramo annagu wax statistics ayaan ku shaqaynaa dambiyada dhaca bishii noocyada yihiin CR-ka lagu qoraa wixii la xukumay waxay baaristooda socoto wixii beenoobay waxaan u baahanay oo baahidaydu tahay in baarayaasha iyo OC stationada lagu tababaro si systemkan maxkamadda oo kale loo wadaago haddaan xabsiyada nahay anaga markii hore wasiirkii hore Xuseen Aydiid ayaa saraakiil yaryar buu sameeyay oo daatooyinka inuu baro xabsiyada uu sameeyay markii dambana waaba kala tageen niman qaramaysnayn bay ahaayeen anagu aad baan uga dambeynaa xagga daatooyinka taqaanaa xabsiyada xabsigan kaliya laakiin xabsiyada 6 xabsi gobol in la gaarsiiyo oo dhalinyar mutacalimiin lanoo tababaro ayaan u baahanaa xabsida hadda awaras kama hayno waayo anigu warka ma hayo waxa ka dhacay daatooyinka hadda waxa soo galay waxa ka baxay war ma hayno waayo waxa laga war heli lahaa waxa weeyaan in systemka gobolada oo dhan la gaarsiiyo taliskuna halka kala xiriiro ayaan u baahanaa waxaan uga mahadnaqaynaa kulankan uu sameeyay gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha guddiga cadaaladda kulankan oo ah CMS case management system oo ah mid lafdhabar ah oo muhiim ah oo kana soo bilaabmay maxkamadaha si sheegay 3 sanana la waday waana soo dhaweynaynaa cid alla cidii ka gacan qaadatay gacanteeda aan ahayn iyo kuwii gudaha iyaga ahaaba labadaba uga mahad celinaa bilowga iyo curinta wanaagsan ay sameeyeenba sida gudoomiyaha maxkamadda sare sheegay nidaamka dawladeed ee Soomaaliland horta gacmays wada haystaan ma aha mid kaliya inuu dhinac ka horumar ma aha laakiin haddana si wada jir aniga si cid walba ka qosaysay maanta way joogtaa haddaan nahay wasaaradda cadaaladda iyo ciidanka asluubtu waxaan isku aragnaa ambaan isleena waa tihiin definition ahaan qeexid ahaan inaan nahay sanduuqii cadaaladda marka systemkani marka la taagan yahay ciidanka asluubta amba xabsiyadii anaga faa'iido badan buu noo leeyahay haddaan nahay wasaaradda cadaaladda waxaan ogaanaynaa wax badan baan ka ogaanaa cidiina soo gashay waxay ku xukuman tahay xilliga ay bixi doonto marka wax faa'iido badan buu leeyahay dalka iyo dadkaba khaas ahaan wasaaradda cadaaladda iyo ciidanka asluubta doesn't exist so we have to go decentralize this program for the institutions of the rule of law. Thank you. Hence why we're gathered here this morning for this briefing, bringing together courts, police, prisons, Attorney General Office, Minister of Justice and Minister of Interior. So just to briefly touch on some of the strategic benefits CMS will bring, here in the Hargeisa courts, judges and registrars are already seeing the benefits of having access to comprehensive records and procedural history of each case. There's a much more efficient and transparent way of dealing with cases now.
haddaan ka hadlo faa'iidooyinka nidaamkan maamulkan maalin dacwad uu leeyahay maxkamadaha tusaale hadda garsoorayaasha iyo kaaliyaasha garsoorayaasha ee maxkamadaha rifcaanka iyo gobolka dhammaantood waxay ka faa'iideen barnaamijkan ama nidaamka cusub waayo si fudud ayay u helayaan inay ogaadaan raadqaacii dacwaddaas raadqaaceedii sidoo kale maxay ahayd waxay fududaysay qofkii waraaqihii badnaa in la guro wuxuu hal kombiyuutar la jiraan oo maxay ahayd wuu kala socon karaa qofku dhammaan si dacwada meesha marayso maqalkii hore la galay iyo qof muhmaan baa loo diray halkaas qofka ka soo soconaya. We have the ability now to analyse data so we can demonstrate patterns of offending which assist the police in managing their resources. For the prison service, the automatic electronic transmission of details of sentences ensures the accuracy in the way sentences are administered. For the Attorney General's Office, a case management tool allows us to manage the allocation of case loads to prosecutors more effectively. And all of these benefits are scalable. At the moment we see them just here in Hargeisa, but there's no reason in the future why CMS cannot go out to the regions. But we mustn't look at those benefits in isolation. It's all part of the same system, and each institution has a role to play. So the system, for it to be really successful, is going to rely on the collaboration, the strength of the collaboration between all of your institutions, and particularly the quality of the inputs into the CMS. So to give you an example, the courts rely on the information and the data they receive from the police to create records. And in their briefing, Joe and Jason will demonstrate some examples of the information and how it's being analysed at the moment to reveal patterns. But the quality of that analysis is only as good as the data the police initially submit.